halka gunud wixii dhacay xogga baro ayamaha xaajada timaada xujayaan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaan aad iyo aad u salaamayaa walaalaha qaaliga ee ku xiran channelka walaasha saduudsanaa channelku waa channelkeeni Firdaws asxaabta cusub waxaan leeyahay soo dhawaada gacmo furan iyo saafi iyo qalbi idin jecel ku soo dhawaada asxaabta hore waxaan leeyahay naga caajisana waa ku mahadsantihiin daawashadiina iyo sidaad ila shaqadeen asxaabta clipkan arki doontaan waxaan ka codsadaa subscribe like share iyo comment waxay yihiin dhiirigelin ومركل يسكسون نقطة أو حيصلة إن شاء الله بإذن الله تلاها يدمو وحنا نقدنا عاوة ليف كانوا لكن هذا كلن كرهرة إن شاء الله قلبتي وحنا سودينية برنامج كان أنت أنا كهل وحنا أمه علينا ونجي شيء وأيامهم بوحة كسعودي سوشيال ميديا أو ربا تيك توك وحنا كسعودي قبيلة يرهرو رنتي دتكي وقول عكتب بدنا mid kamida dadkii lacagta diraayay ee ugu badnaa mid kamida walaalkay uu naga aqbalay dadka abaaraha saameeyeen meesha doonaan ha joogaan inuu wax u diraayo uu aqbalay muhaan uu ku mahadsan yahay muhaan inaan wiil muhaan la dhaho ayaaba baaqa u diray maanta si live uga la hadlay isaguna wuxuu aqbalay si live inuu dadka abaaraha saameeyay ووحي وأوضي وأدري دونه تسوى تواجول إن قدر كل بعض كلنا وحنو مهد علينا يا ويلكن واشر ماركة أيام لها ويلكن الفيديو بيسألك دونتان وحلا هذا شر ماركة وحوي ويلا شد اللي هذا سوشيال ميديا هسيد الصحن وقول حجرة ويلكن سحوا ذي باق ورلعجهن القصارين إنسان كده يا أبارة روكي هيا سحر برر باهيا shalay leefkeenina waan kaga hadlay dad badan baa maanta ay gaadhay oo ka soo jawaabay arrinka dadkii lacagaha diraayay laftigoodiina ma sha Allah tabaarakallah way aqbaleen in iyaguna abaaraha wax ku darsanayaan taasina waa guul labaad wiilkan sharmaarka wuxuu caawiyaa dadka danyarta wagoomaha darbi jiifyada isagu ma haysta hanti uu ku caawiyo laakiin dadka walaalahooda ayaa u soo bandhigaa ee dhibaataysan dadka walaalahooda ee dhibaataysan buu u soo bandhigaa markuu u soo bandhigo dadkii wixii uu alla ka siiyo ayaa uu iyagana u geeyaa marka wiilkan waa kan kelmadii uu social media kaga dhex yiri waa tan ay ila dhageysta waxaan rabaa inaan ka hadlo waxaad u dulqaadatay laakiin anigu aan u dulqaadan kari waaye ilaahay baa idinku dhaarshe dadkii aan soo arkay dadka maanta aan social media ku arkay ficilkooda wallahi farqi weyn baa u dhaxeeya wiil yar oo agoona hadalkaas waa hadal aad u weyn waa hadal nin weyn waxaan ku leeyahay sharmaarke garabkaagaan nahay dadka inta wanaagsan baa kula garaba hore u soco ilaahayna ha ku garab galo intaasaan kaga baxaynaa qodobka labaad ee kale aan maanta insha Allah ka hadli doono sida aad ku aragtaan ciwaanka aad ku arki doontaan maanta ma jeceshahay in aad dad badan ka cadhaysiiso ma jeceshahay sama diyaar u tahay dadka aad ka cadhaysiinaysaa ma waxaad kaga cadhaysiinaysaa cay maya ma waxaad kaga cadhaysiinaysaa qabiil kooda oo aad caydo maya ma TikTok inta soo gasho isqaawiso oo jirkaagii barnaamijka soo dhigto ayaad kaga cadhaysiinaysaa waa maya dadka qaar waxa aad kaga cadhaysiin kartaa waxa ay tahay in aad dantaada raacato maalinta ay ku arkaan inaad dantaadii raacatay oo aad adigu dantaadii raacday sidaad dantaada u raacaysaa siyaabo kala duwan ayaa danta loo raacaa maanta haddaad dantaada raacdo dadku isku may soo mashquulin qof waliba hadduu dantiisa intuu raacayo dantiisa arkaayo dantiisa hore uga soconaayo la iskuma mashquuleen waxaanan aaminsanahay hore haddaan dantayda u raacan lahaa inaan wax badan iga khasaareen laakiin wanasaday maalin maalmaha ka mid ayaad ku fakaraysaa inaad dantaada raacato dantaada marka aad ka raacdo dadka aad ka xanaajinaysaa waayo waa dadkii
kuu arkayay inaad tahay dan nuug laakiin dantaada waxyaabo kala duwan ayaabaa saameyn kara inaad dantaada raaxan waayo waxaa saameyn kara waxyaabo kala duwan cilmiba ma adduunyaa ma meesha ay farmatiga iyo deegaanka aad degan tahayba ma sida laguu soo barbaariye maskaxdaada loo soo barbaariyey intelligigaaga intuba saameyn way ku yeelan kartaa laakiin halkan ee dhig waxyaabaha aad dadka ku xanuujinayso ee aadka iyo aadka aad ugu xanuujinayso waxa ay ka mid tahay haddaad dantaada raacato waxaa kuu baxaya iftiin baad noqonaysaa iftiin ayaabaa kuu noqonaysa waxaanan aaminsanahay dad badan haddii ay dantooda raacan lahaayeen inaan lays haleeleen hadday social media tahay hadday wax kasta tahay hadday wax kastaba hadday tahay haddii ay qabiil tahay dadka maanta haddii dantooda raacdaan waxay ka xanaajinayaan waa dadka qaar laba siyood bay uga xanaajiyaan labada siyood ay dadka uga xanaajiyaan waxaa ka mid ah mid waxay ku odhanayaan mid waa action waa ficil midina waa afxumo way kibirtay dadka lama hadasho waxbaa iskugu duba dhacay way taajirtay adduunyay haysataa adiga iyo allahabaa is og adiga iyo allaha raxmaanka ayaabaa is og laakiin maxay ku odhanayaan afxumo way isbedeshay maxaa kusoo kordhay maxaa caynkana maxaa sidana maxay sidaa wahaan weyday waxay kaaga barteen hadal badan hadalkiibaad yaraysay dad baad ka xanaajisay waxaad ahayd dadka socodka badan le socodkiibaad yaraysay dad baad ka xanaajisay waxaad ahayd dadka dan la-aanta ah ee waqtigoodu kusoo gabagabaysmo dad baad ka xanaajisay dadtaada haddaad raacato laba siyood baa layidhi soo maaha midi waatan way kibirtay afxumay kuugu jawaabayaan jawaabtooda waxay noqonaysaa afxumo ha u joojin ha eegin waxa kaa dambeeya eeg waxa kaa horeeya qodob kale ayaaba ah qofka dadka markaad adigu dantaada raacato ee aad dantaada mooye wax kale aanad ku foofin abka la qaraacay marka aad dantaada raacato waxa aad ka xanaajinaysaa waxay tahay dad badan ama afxumaha kuugu jawaabaan dadka aad ka xanaajisay amaba dad ilays aad u noqotid oo aad iftiin u noqotid markaad adigu si fiican aad danahaaga u raacato dadka xanaaqaya qodobka labaad qodob waynu sheegno waa dadka afxumada kuugu jawaabaya dadka qaarna waxay odhanayaan sida ay qofkan isku bedelay sida ay waxaan u samaynayo sida kan kale san kale maad adiga laftigaagu aad ka xanaajisid qofkii kale xitaa muxuu odhanayaa qofkan uu ka xanaajiyey isaguna muxuu bedelayaa habdhaqameedkiisii uu markii hore ahaa ayuu bedelayaa isaga oo raba inaad sidaada oo kale sidiisa oo kale aad noqoto kaasina waa kaasaa u fiican actionka kuwa ku bedelaaya ee isaguna odhanaya danteeday raacatay heblaayaha adiguna dantaada raaco kaasi waxa weeyaan waxbuu bedeli karaa ma rabtaa inaad noqoto adiga oo aan qof qabiil ku caayin adiga oo aan qof dhaliilin adiga oo aan qof fadeexadayn adiga oo aan qof wax qodan inaad noqoto ilays oo aad iftiin light in aad noqoto ma u baahan tahay ma lihin guri madow buu layd u noqonayaa dad madmadow buu layd u noqonayaa maxay kaluu layd u noqonaya no maaha taas keliyaata waxa aad layd aad ka dhigaysaa waxa weeyaan ficilkaagii iyo habdhaqameedkaagii ayaa wuxuu iftiiminayaa bulsho dad ayuu iftiiminayaa marka qof wanaagsan oo isbedelay oo noloshiisii bedelay oo ka xanaajiyay dadka intii xumaa muxuu noqonayaa light iftiin ayuu noqonayaa iftiin dad madmadooyo guri madooyo sayn horeba usoo sheegnay no ma cadaynaysid keliyaata waxa aad ilays u noqonaysaa waxa weeyaan dad raba inay noloshooda bedelaan ka xanaaji dadka intooda badan ka xanaaji haddaad isbedesho
oo aad dantaada raacato oo aad hawshaada mooye hawl kale aanad eegin oo aad danaha dadku waxay odhanayaan danahaaga waxay noqonayaan inaad cibaadaysato inaad hanti tabcato inaad adduunyo inaad shaqaysato in aad ehelkaaga xidhiidhiso in aad nacayda joojiso inaad alla ka cabsato mora aad bay u badan yihiin danahaaga marka danahaagu ma aha qofkan bini aadanka ah baan danahaygii iyo maskaxdaydii kaga faa'iidaysanaya no adigu isbedel adigu noloshaada sidaad horumar u gaari lahayd sidaad dad fiican u soo saari lahayd si aad taas ku mashquul inta aad ku mashquuli lahayd waxyaabo kale marka waxaan ku leeyahay marka kasta oo aad adigu isbedesho dad baad ka xanaajinaysaa ee dadka aad ka xanaajisaa ha noqoto dadaad ilays amaba iftiin aad u noqoto waxaan iskaga tegayaa oo walaashiina idin leh waa inoo caawiya live-ka kulan dambe oo xiisa leh. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.